waxaan rabaa hadduu maqli jiro horta liisoo qoro dhowrka qof ee hadda soo booqatay inuu maqli jiro. waxaan rabaa inaan qodob muhiima aan maanta ka hadlo oo waxa weeyaan wixii siyaasada waa meesheeda, laakiin arrinkan waxbarashada waa arrin masiiriya. ubad Soomaaliyeed badanna uu masiiri u yahay, iftiinna u ah dalkaas Soomaaliya iyo adduunka oo dhanba. maanta waxa adduunka lagu socdo waa waxbarashada. marka waxaan rabaa in xaal liisoo qoro waa jiraa mas-uul Cadnaan Cali waa kaa qaaday. waxaan codsanayaa inaad barnaamijkan sheer garaysaan, ciddii aad gaarsiin kardhaana gaarsiisaan. waxaan sugaynaa ilaa hadda 5 qof baa daawanayo. waxaan sugaynaa inta waxa weeyaan dadku noo imaan doonaan. waxaan codsanayaa qof walba barnaamijkan daawanaya in barnaamijkan uu sheer gareeyo si ay u gaadho asxaabta wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya, wasaaradda waxbarashada Puntland, intaba inay gaarto ayaan jeclaan lahaa. midna waa ka afeefanayaa oo waxa weeye barnaamijkan waxaan usoo galay inaan runta taabto iyo meesha ay wax ka qasan yihiin iyo waxa la isku hayo ee xaqiiqda ah. arrinkaasna waa nagu qasab haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed inaanu ka hadalno masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed 5,000 oo arday gaaraysa ee la isku haysto maanta shahaadadoodii iyo meesha waxbarasho doonan lahayn. marka waxaan jeclaan lahaa inaad dadka noo badisaan oo barnaamijka sheer garaysaan, gurubyada gelisaan. waa markii ugu horreysay waan live soo galo. inta badan live-ka ma soo gali jirin, mana daawan jirin hataa dadka live-ka soo galo. laakiin arrinkan waa arrin xasaasiya mudanna in laga hadlo. marka please noo sheer gareeya oo waxay isku daydaan inaad gurubyadaas iyo meelahaas oo dhan aad gelisaan, dadkan aad u qaybisaan barnaamijkan. marka waan sugaynaa inta dadku soo badanayaan, yaan la caajisin. barnaamij xasaasiya weeyaan, arrimo badan baa looga hadlayaa. waxaan rabaa inaan 4 qodob kusoo koobo barnaamijkeyga. yaa qaldan Puntland iyo federaalka, dowladda federaalka iyo dowladda Puntland kee qaldan? maxay tahay danta ugu jirto Puntland inay diido imtixaanka federaalku? yay u xiran tahay wasaaradda waxbarashada Puntland? xalku waa sidee? 4taas qodob ayaan ka hadlaynaa. marka waxaan jeclaanayaa inaad sheer garaysaan barnaamijka si dadku ay usoo bataan, barnaamijkuna uu dadku u gaaro. arrinka waa arrin xasaasiya, ay u baahan tahay inuu qof walba oo Soomaaliyeed ka hadlo. dadka reer Puntland inay ka hadlaan ay u baahan tahay, ardayda reer Puntland inay ka hadlaan ay u baahan tahay, maamulayaasha iskuullada inay ka hadlaan ay u baahan tahay. dowladda federaalka oo wasaaradda waxbarashadu ay arrinkan xalay Goodax Barre wasiirka waxbarashada uu ka hadlay inay intaas ku ekaan ay barnaamijku gaadho ra'iisul wasaare Kheyre iyo madaxweyne Farmaajo ay ka hadlaanna waa loo baahan yahay. waxaan kaloo ka hadlaynaa falanqeyntii xalay wasiir Goodax Barre shirki jaraa'id uu qabtay maxay xambaarsaneed, ujeedkeedu waa maxay, maxaa uu dhaliilaa uu Goodax Barre leeyahay, dadka uu dhaliisha u jeediyey maxay dhaliilaa oo saxa oo ay leeyihiin, maxay ku qaldayiin. intaba waa ka hadlaynaa barnaamijkan maanta uga hadlaynaa. waxaan jeclaan lahaa inaad barnaamijka ii sheer garaysaan. 19 qof baa ay daawanayso. 19 qof anugu meesha uma aanu soo gelin, ma garateen. meesha waxaan usoo galay inay dad badan barnaamijkan gaadho, ilaa wasaaradaha waxbarashada ee arrintan ay qusayso inay gaadho. marka waan bilaabanaynaa mar dhow insha Allah. ayaan laga caajisin, dadkan ha loo sheer gareeyo, idinkuna ha iga caajisinna. commentskan ha liisoo raaciyo wixii waxa weeyaan aan sheegay inaan ku saxanahay in kale. barnaamijka sheer gareeya, waa barnaamij xasaasiya. arrinkan waa barnaamij, arrinkan waa waxbarashadii dhalinyarada, arrin siyaasadeed ma aha. waxa weeye dalkan mudduu wuxuu ahaa burbur ku jiray, muddaduu burbur ku jiray siyaasad baa laisku hayay. marna ma dhicin in arrin waxbarasho laisku qabto. waxbarashadu way socotay, dad baa waxa weye furaha u qabtay, ajar ilaahay ka siiyo. marna ma aysan istaagin. maanta oo dowlad soo iftay in laisqabsado waa arrin xasaasiya. marka waxaan rabay inaan waxa weeyaan barnaamijkaas si toos uga hadlo. marka Puntland iyo federaalka barnaamijku waa bilaabanayna. Puntland iyo federaalka yaa qaldan? Puntland iyo federaalka yaa qaldan? labada wasaaradood ee waxbarashada.
aniga waxay ila tahay dowladda Puntland inay qaldan tahay markii aan dhahno Puntland ee federaalka yaa qaldan waayo dowladda federaalka wasiir Goodax waanu dhageysanay waxa uu ka hadlay waa dhowr qodob oo muhiim ah qodobka koowaad wasiir Goodax wuxuu sheegay in wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya muddo 4 sano ay haysteen wasaaradda waxbarashada Puntland sanad walba ay imtixaan ku galayeen sanadkan shahaadooyin ku qaadanayeen sanadkan waa dhacday wixii barnaamijku aan ku soo shaqeynay sanadka dambe ayaanu waxa weeyaan imtixaan midaysan ka qayb gali doonaan sanadkan ardada shahaadadaha noo la siiyo waa qodobka koowaad uu Goodax Barre cuskaday dad badan oo soo qoraya Goodax Barre qodоб dastuuriya ma cudsan baan rabaa inaan ka jaahil bixiyo qodobka labaad ee uu Goodax Barre qabsaday waxa weeyaan in dad badan baa waxay ku doodayaan xildhibaanada Puntland ma hadlaan golaha aqalka sare muxuu u hadli laayahay wasiirada Puntland muxuu u hadli laayihiin dad badan ayaa ku doodayo Goodax Barre waxa uu sheegay in 48 xildhibaan ee golaha shacabka ee Puntland u matala in ay la hadleen dowladda iyo wasaaradda waxbarashada Puntland hadalkoodana waxba laga soo qaadi waayay Goodax Barre wuxuu sheegay 12 xildhibaan ee golaha aqalka sare senator ee golaha aqalka sare Puntland ugu jiro 6 kamid ah inay la hadleen dowladda Puntland oo arinkaas ay kala hadleen oo waxba laga soo qaadi waayay Goodax Barre waxa kale uu sheegay dad wasaaradda ka tirsan oo wasiir dowlaha arrimaha waxbarashada dowladda Soomaaliya uu reer Puntland yahay inuu Puntland tagay oo hadalkiisa waxba laga soo qaadi waayay Goodax waa intuu sheegay marka waxaan ka sugaynaa xildhibaanada 48 xildhibaan ah ee Puntland ah ee dowladda federaalka ku matalo inay ka hadlaan oo ay dhahaan Goodax Barre waxa weeyaan arinkaas uu ku saxan yahay mise Goodax Barre arinkaas wax kama jiraan weeye arinkaas sugayna arinkaas weeye waxayna ila tahay in Goodax Barre saxan yahay waayo weli ma aanan arag xildhibaan reer Puntland kuwa aan la xiriiray way ka gaabsadeen arinkaasi laakiin weli ma aanan xildhibaan reer Puntland oo u matalo federaalka ku matalo oo arinkan ka hadlay marka waxay iska cadahay in xildhibaanada reer Puntland ay arinkan door weyn ka qaateen dhaxdhaxaadin ay galeen balse ay waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada Puntland dadka ay kootada ugu xiran tahay in ay waxa weeyaan diideen tan kale uu Goodax Barre uu ka hadlay waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada Puntland waxay leedahay wasiir warnamada Ilaahay laga baqo wasiir beleedahay waxa uu yiri wasiirka waa maqaar saar waa nin fiican halkan uu igu yimid 2 isbuuc uu ila joogo waa nin maqaar saar waa runtiis wallahi sunbay ka sheegay sababtoo ah daliil baan ku sheegaya wasaaradda waxbarashada Puntland waxay leedahay wasiir beleedahay wasiir ku xiyaan beleedahay wasiir dawlad leedahay agaasime leedahay inta kama aysan hadlin waxa hadlay Cali Xaaji Juxa iyo Faroole haddii hadda Faroole iyo Juxa iyo Cali Xaaji wasaaradda waxbarashada kama shaqeeyaan xil Puntland kama hayaan meel kale uma joogaan senators ma aha baarlamaan ma aha imise siyaasi how many dad reer Puntland waa dadka ugu siyaasiyiinta badan Soomaaliya Puntland waa meesha ugu siyaasiyiinta badan Soomaaliya way other politicians ay u hadlayeen way aad ku takooray Juxa inuu hadlo maanta waxaan arkay Cali Xaaji tweetkiis ku soo qoray cambaareenay Goodax Barre way Cali Xaaji wasaaradda waxbarashada Puntland ma shaqeeyo wasiir buu ka ahaan jiray faashi waa laga qaaday xilka fiir waliba waxa lagu eedeeyay markii xilka Farool uu ka qaaday waliba uu sii karbaashay wuxuu ku eedeeyay inuu musuqmaasuq sameeyay ninkii noocaas ahaa baa maanta waxa weeye wasaaradda waxbarashada iyo arinkan ka hadlaya marka arinkan wasiir bay leedahay wasiir ku xigeen bay leedahay wasiiru dawlad joog ma guddi waxa jiro waxbarasho Puntland guddi waxa jiro ardayda ah barnaamijkan dad badan baa ka hadli kara wali ma aragtaan arday mudaharaadayso wali maamulo mudaharaadayo iskuula ma aragna wali macallimiin hadlayo ma aragna waa maya marka kootada waxa weeyaan uu Goodax Barre ka hadlayo waxa weeye hadalkiisa wax walba Goodax Barre inta uu ka hadlay waxa ay wax la taaban karo oo cadeen iyo marqaati qof walba oo Soomaali iska daa qof reer Puntland qof walba oo Soomaaliyeed inuu waxa weeyaan cadeen cad u haysto arinkaas oo uu taaban karo buu ka hadlay iska daa dadka reer Puntland ee xogaalka marka arinkan arin laga xishoodo ma wixii siyaasada oo Puntland ka dhaxeeya dhaxdeeda waa arimo iyagu gooni looga hadli doono ma hadii rabaan aan laga hadli karin kursiga maanta kama hadlayno arin Syrian ka hadlayna oo waxbarashada 5,000 oo arday oo reer Puntland ayaa waxay u xariiran yihiin shahaadadii marka Goodax Barre hal mid oo aan taaban karo personal attack oo Faroole ka sameeyay bay waxa weeyaan
xoogaa wuu ku degdegay inkastoo waxa uu ka hadlay oo dhan ay run tahay. marka cali xaaji iyo juxa iyo faroole inay wasaaradda waxbarashada ka hadlaan oo ay dad wasiirkii ku shaqo lahaa iyo ku-xigeenkii iyo wasiiru dawlihii iyo agaasimihii ay ka hadli waayaan waxay caddeynaysaa taas inay tahay koota u xiran 3 nin meesha. taas waa markhaati cad. marka maxay tahay puntland inay ugu jirto inay imtixaanka exaamka puntland waxay tiri waxaan sameynay manhaj bishii 11aad baa igu dambeysay aniga wax badan baan ogahay. wasaaradda waxbarashada waa booqday waan soo indhiyey wasaarado badan baan booqday weli wasaaradaha waxay ahayd aan waxa weeyaan ahmiyadda goowaad siinaya iyadii caafimaadka oo aan ogo inay u afduuban tahay dad gaara iyo qoys gaara labada wasaaradood wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka labadaba waan booqday. wax badan baa iiga cadaaday waan ka hadli doonaa mar kale ayaan waxa weeyaan barnaamijkaas si faahfaahsan uga hadli doonaa. barnaamijku waxaan jeclaan lahaa inaad noo sheergaraysaan insha allah si dadka kale u gaaraan aanan iga caajisin wax badan ayaan soo wadaa. marka maxay tahay danta ugu jirto puntland inay diidda exaamka puntland waxay tiri arday manhaj baanu sameynay waxbarashada waanu dhisnay kaalmaha koowaad ardaydeena galayso waay danta ugu jirto puntland inay diidda exaamka maxay tahay. wasaaradda ciyaaraha soomaaliya markay ku dhawaaqday koobkii maamul goboleedyada puntland way tagtaa wayna ka qayb gashaa koob bay soo qaaday waay waxbarashada ay ku diiday exaamka inay ka gasho. marka waxaa meeshan waxaa la diidan yahay waxa weeyaan in barnaamij waxaa ka jira la dhaho adeer wiilka iyo ama gabadhan inta badan gabdhaha cid geysataba maleba meeluu inta badan gabdhaha waxa weeyaan muhiimad gaara ma siiyaan wiilasha adeer wiilkan ii qor shalay isagoo baadiye ka yimid baa waxaa la geenayaa bareefad luqadda ingiliishku baranaya xisaabta la geenayaa ku dar iyo ka jar iyo ku dhufa iyo uqaybin iyo aljabra iyo mas'alu baranaya waa situ waa isku dhamaatay. wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa laleeyahay ii qor wiilkan minxada sanadkan iigu dar sidii ayuu turkiga lagu keenayaa ukraine lagu keenayaa ruushia lagu keenaya. sanadka hore wasaaradda waxbarashada puntland waa markii ugu horeysa soo saartay wiil reer carma baa wuxuu ku guuleystay kaalinta koowaad reer puntland A plus. halkan aan ku arkay baris baan isku aragnay wuu soo tahriibay waxa weeyaan sudan baa la siiyey ardaydii ka hooseysay ee B keentay iyo C keentayna waxaa loo diray Ukraine China Rushka meelahaasaa loo diray. ninkii eeda keenay waxa weeye halkaas ay weliba ka sheegeen oo tviyada laga soo gudbiyana sudan baa lagu qanciyay weliba kuliyad maxaad usoo tahriibtana eriyo kuliyad dhiidata uusan u qalmin A plus kuliyadaha ay dhigtaan waa la yaqaanaa waa caafimaad engineering bahalkii kuliyadahan waa u baahan xisaabaadka iyo maskaxda badan kuliyad commerce lahaa lagu qoray oo waxa weeye businesska oo waxa weeyaan grade C-da iyo D-du iyo ay geli karaan intaba ma garato. marka adeer meeshan waa koota wey dad bay u xiran tahay dad baana meeshan lagu naasnuujiyaa ciyaalka waa la iska qoraa kii shalay baadiye ka yimid baa la qoraa oo waxa weye wasaaraddan waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waa labada wasaaradood ee waxa weeyaan kootada ku xiran. barnaamij baan xalay soo geliyey oo 700 oo qof oo turkiga qaadanayay 700 oo qof baa turkiga maya wuxuu qaadanaya 120 qof 700 oo qof oo reer puntland ayaa waxay u galeen imtixaan waxay ka galeen garowe. waxaa la yiri waxaa baasay fiiriya dugsiyada sare waxaa baasay 40 reer garowe iyo 12 muduga total reer garowe waxay noqdeen 80 arday oo turkiga loo qaaday reer mudugna waxay noqdeen gobolka mudugna waxay noqdeen 40. ilaahay baan ku dhaarshay magaalada Boosaaso ee 2 milyan oo qof ay ku nooshahay oo populationka ugu badan puntland ay ku nooshahay hal arday ma soo bixin ma aqli galba ma wax la qaadan karaa ma wax qof weyn oo meel la soo fadhiisan karaa midda kale xataa waxay ku ficneed in waxaan record gali doonaan juxa waxa wasiirka waxbarashada juxa ahaa madaxweyne dalkan farolaka waxaan inay record gali doonaan dad badan ku kala tagi doonaan waxaan waxa weeyaan dib laga fiirin doono miyaysan ogeyn haddii barnaamijkii aad samaysay waxa weeye waaba samaysay soo maaha hoos ka qor ardada dir
laakiin TV wallahi qasama billahi turkiga wuxuu u xiray barnaamijkaas marka uu turkiga arkay cross buu saaray minxooyinkii Soomaaliya la siin jiray liajli farol uu saaray ardayga gala website turkida online baa lagu xariista hadda maalintaas wixii ka dambeysay cross baa la saaray in arday dambe imtixaan dambe maamul goboleedyada la geeyo xataa dowladda federaalka laga mamnuucay kowdi dowladda turkiga waa eegtay marka la eegay 8 arday hal qof ma soo xaadirin kulli Greek iyo waxa isku soo wada shubeen iyo maxaa Bulgaria wada galeen marka waxa weey dadkan dhalinyarada wax bartay jihaadaya waxa weey hawarta yaayada gado iyo odayga miskiinka baqaarka u furan yahay oo lacagta ka bixiyo yaan mirahooda laga dhigin wax lagu ciyaaro walaalayaal oo wiil reer miyi oo shalay miyi ka yimid yaana booska la gelin ilaah iyo aakhirana way dambaysaa waa la wada dhimanayay ilaah baa idin ku dhaarshay wiilka shalay miyi ka yimid in firi odaygan baqaar baa u furan $40 baa laga qaadaa wiilkii dugsiga sare magaalada Puntland dugsiga sare $40 baa laga qaadaa odaygii 4 ciyaal u dhigtaan 5 ciyaal u dhigtaan waa $200 waxa laga yaabaa odaygaas inuu bishii celcelis baqaar yar u furan yahay uu ka helo waxa weeye $400 $500 $200 markuu ciyaal kaga bixiyo 100 ay tahay dharkoodii waxooda $200 reerka biilkooda ma noqon karo odaygii waxaa soo juhdiga soo maray oo maanta islaha ciyaalkan yeysan waxa weeye wax ku biri aad ku aydid oo iyaga naftooda xu noqdaan ilaah baan kugu dhaarshay marka wiilka shalay miyi ka yimid intii la qoro keen la dhaho wuu dhacay ama ma keen oo ma keenin ilaah baan ku dhaarshay dulmiga taas ka weyn oo waxa weeyaan dalkan ka dhici karo muxuu yahay war ilaaha laga baqo wasaaraddan waxbarashada ee Puntland iyo goodax bare suma wallahi cadaalad goodax bara u dhow soo magac caleema 4 sano ayaa loo dul qaadanaya wasaaradda waxbarashada sanad walba waxay dhahayeen waxaanu sanadka dambe ilma adeeraa sanadka dambe kun arday ku geysateen fiir waa 4 years oo 4 arday minxa aadeen waa 12 arday inta ka badan waxa weeyaan waa cadaaladda loo heeliyo oo cadaaladda lagu socdo meeshan niman bay u xiran tahay reer Puntland kale waxaan u sheegayaa waxaad ogtahay inaad iska editid ma fiicno dad baa jira halka Facebook waxay ku soo qorayaan annaga reer Puntland baan nahay waxay iyaga og yihiin la garay ninka qabyaaladda ku taageeray oo adeerkiis ama wiilku adeerku yahay ama wiilka ilma adeerkiin min xal ugu qoray kaasi la garayba oo dawcad buu isagu sheegtay waxaan qabyaalad baan ku taageeray buu yiri laakiin wiil ilaah baan kugu dharshay cadaalad xumada og oo u warhayo oo wuxuu dhaafsanaya masiirka reer Puntland shaqo yar oo Saciid Cabdullaahi Dalisi fiir inta Facebookada ku soo qorayso inta qabyaalada ku taageerayso sheegmay inta aan qabyaalada ku taageerin oo aan u aqaan in hebel u aqaan ee ku soo qorayso reer Puntland waa laga qaldan yahay in farola saxan iyo goodax bar waa qaldan yahay waa in yar oo dawladda u shaqeysa masiirkaas reer Puntland iyo ardadaas waxay siisanayaan waa shaqada yar $200 ee mushaharka ay Saciid Cabdullaahi Dalisi ka qaadan bay u guul wadeynayaan damiirkii iyo wixii oo dhan baa dhintay hatta qul xaq walow kaan war hatta hadii macnaha ay waxa weeyaan aad arinkan aan ka hadli karin walaalo ka aamus laakiin meesha xilka laga qaadaya walaal noo sheeg hadii xilka laga qaadaya ama shaqadan yar ahaysid ay dawladdu anagu waa la soconaa dawladda Facebook-gaas u jeedaa hadii dawladdu xilka kugu siisay inaad Facebook wax ku soo qortid noo sheeg hadii kale walaalo bilaa alayk shaqo yar oo aad bilna mushahar qaadato bilna aadan qaadan waxa weey masiirkaas walaalaha dhibaataysan ee waxa weey waxoodii la qaatay hadul ma ka galin waa lagu qorayaa malaa'ig baa saaran garbahaga maanta waa adduun bari weey aakhiro wallahi garbahaga malaa'ig saaranta waana lagu qorayaa walaalow ka aamus ha ka hadlin dad badan oo caan ah arkay oo wax u oroleeyo oo Saciid Cabdullaahi Dalisi shilmaan ka qaatay garoowe tagay oo mushahar la siiyo oo halka Facebook goodax baa qaldan iyo waxa iska soo qoray meeshan waxa weeyaan dadka reer Puntland iska daa dadka Soomaaliyeed baa aragtay meeshan inay kooto tahay wasaaraddan waxbarashadana dad u xiran tahay cideer adeerow meeshan lagu keenay adeerow wiilkan ii qoro iigu dir
minxo marka waxaas wax soconaya maaha muddaanu kusoo jirnay wasaaradda waxbarashada waan bogaadinaynaa goodax bar waan bogaadinaynaa ra-iisul wasaare kheyre waxa weeye arrinkan wasaaradda waxbarashadu goodax suu sheegay waxay leedahay vision barnaamij baa u degsan barnaamijkeedaas yaan laga faragelin dad badan baa ku doodayay somaliland baa shahaadooyinka waa la siiyaa mawduuc kale wey way soo socotaa mawduucaas somaliland iyo dowladda federaalka waxaa u socda wada hadal halkaas dhig somaliland waxaa kasoo horeysa horta puntland in la qabto markii puntland la qabto ayaa loo gudbi karaa meel kale marka dowladda mid baan ka codsan lahaa iyo goodax bare waxaan ka codsanayaa ardayda reer puntland inay u asteeyaan meel ay imtixaanka ku galaan muqdisho ama meel kale inay dhahaan halkaas ayay ardayda reer puntland imtixaan ku geli karaan waan la rajgaranaya annagaa wala hadlayno dugsiyada sare annagaa la xiriirayno wasaaradda waxbarashada dad reer puntland iyo dad reer puntland dad mali maqlaa horta waxoogaa qadka iga yar go-ay dad reer puntland ayaa waxay isku xirayaan oo annagu aan ka mid nahay wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo ardayda reer puntland iyo macalimiinta ardaydaas magaalada muqdisho imtixaan ha lagu galaan wixii calafkooda ay qaadaan bay leeyihin iyo dowladda federaalka waxay ka helaan bay leeyihin meeshaan waxa weeye garowaa dad laga qoraa intaasoo arday baa gashaan lahaa garowaa laga qoraa halkaasaa laga diriyaa ardayda kale ee cadkooda la qarin waayana oo caddaata inay soo baxeenna waxaa lagu qoraa scholarship ethoobia jigjigaa la geeyaa addis ababa iyo jigjiga iyo suudaan baa la geeyaa meel kale oo la geeyo male waa ninkii micnaha haddii ee keeno oo micnaha ninkan lama qarin karo waa qorax cad la dhaho iyo nin xoogaa bixiyo way jiraan dad yaroo $1,000 iyo wax bixiyo wasaaradda waxbarashada soo maro kuwaasna waxaa lagu qoraa ethoobia iyo maxaha iyo jigjiga iyo waxa lagu qoraa iyo suudaan iyo yemen meel kale oo loo diro male waxaa arkayay laba idaacadood baa ka jira puntland daljir iyo s b c ilaah baa idinku dhaarsheeyey s b c iyo daljir bal waa kaasa waxaad ka daawataan intay tagaan carmo intay tagaan boosaaso intay tagaan baran intay tagaan baargaal intay tagaan galdogob bal barnaamij goodax iyo wasaaradda waxbarashada waxay isku hayaan dadka ha kasoo duubaan saaka waxaan daawanaya s b c waxay la soo shir tagtay dadka buurtille ayaanu waxaanu ka weydiina wax goodax iyo wasaaradda waxbarashada oo dadkaad wax ka weydiinaysid waa dadkii lagu qaadaya adeerow iyo in adeerowey wasaaraddu ay ku qaadaysay maa dadka aanan la qaadin oo waxa weeyaan ciyaalkoodu ku dulma yihiin meesha ee carmo joogo ee magaalada boosaaso ee 2 milyan ku nooshahay joogo ee magaalooyinka kale joogo ee waaciyo joogo ee galdogob joogo ee baargaal joogo ee baran joogo ee dhahar joogo maad u geys haddaad run sheegaysid oo waxa weeyaan waxaan daacad kaa tahay waxay kula wareegayaan mikrofoonka dad garowa joogo iyo dad buurtila joogo bal idinku daawada idaacad kale oo ka shaqeysa puntland ma jiro s b c iyo daljir midnima idaacadda midnima jiri jirtay midnimana waa la xiray sida maalin walba abaabka loo xirayay maalin walba warkaana sheegtay loo dhahay way isaga carareen dadkii lahaa albaabada iskugu dhufteen 12 sano dadkaas waxay dhageystaan idaacadda daljir iyo s b c waxay sheegto daljir iyo s b c na dad baa iskale kawde cali cabdawara daljir s b c iskale daljir niman kala iskale marka s b c bal intay tagto magaalooyin kale inay puntland ugu weynto waa 9 gobol waa imise degmo waa 40 degmo puntland karanti wey 40 ka degmo ilaah baan kugu dhaarshiyay ha dhaafto garowe buurtile nimankaas jaalkacyadaas ma tahay dadku mix ma tahay maldegay bal ha tagto waxay kugula wareegayaan garowe iyo buurtile bay barnaamij ka soo duwayaan oo dadka reer garowe dadka buurtile waa dadka deemaanaba lagu qoray in adeerow iyo adeerowdi maxay dhihi lahaayeen oo kale dadka cadaaladda u baahan in mikrofoonka loo geeyo u baahan oo u baahan in waxa weeyaan barnaamijkooda la gudbiyo waa dadka gobolada kale ku nool walaalayaal 8 7 gobol kale ee puntland dadka ku nool u geeya
microfonka bal aragtidooda kasoo qaata bal waa kaasaaye maamule iskuul oo banaan baxay oo ardaydiisa soo saaray bal aanu aragno laba iskuul baa laga banaan bixi doonaa waa arki doontaan isbuucan soo socdo hadalkayga ku qorta wax laba meelood baa laga banaan bixi doonaa waa iskuulada Garowe ku yaal iskuulada Boortille ku yaal meel kale oo laga banaan bixi doono hal iskuul oo Boosaaso ku yaal Qardho soo Qardho ma iskuul Qardho ku yaal xataa laga banaan baxayo hal iskuul oo hadii laga banaan baxo waxaan sheegaya ii goodax baro waxa uu sheegayo waa been barnaamijka noo shargareeya marka idaacadahana waa idaacado koota ku xiran oo dad bay u xiran yihiin magaalooyin gaarana microfonka loo geeyaa oo la ka warama arrinkan wasaaradana dad bay koota ugu xiran tahay wasaaraddan waxbarashada wasiir belada waa nin reer sanaaga wuxuu yiri goodax bare wuxuu yiri wasiirku waa nin fiican laba isbuuc buu halkan la joogay laakiin wasaaradda awood ma leh wallahi waa runtiis ana soo arkay agaasimaha wasaaradda ayaa meesha haysta suma wallahi wasaaradda waxbarashada waxa ka tirsan dad aan dugsi sare dhameen oo Garowe feel ku wato war xishoodan ku iraaniga qosol bay ku waashay war naga xishoodan ku iri daabtiyaal wasaaradda waxbarashada markaa tagay abtiyaal naga xishoodan ku iri saansi maahay ma fahanteen marka waa dadkii waxa weeyaan kooti ku xiran goodax barana waxa uu sheegay waa runtiis wasaaradda waxbarashada Soomaaliya dulqaadku waa ka dhamaaday awal baana wasaarad aniga jaamacad soo dhigtay oo iskuul lameeyay Qaahiraan tagay waa ligu qoslay markaa shahaadadeedii taagtay waa xasuusta Cabdilshideey waxaan ka soo sameystay shahaado baalkii marka wasaaradda waxbarashada walaalahay haday soo dhicisay shahaado muctarifa oo adduunka ixtiraafsan yahay oo jaamacadihii lagu galayo walaalayaal imtixaanka laga qayb qaato wixii calafkiina ilaahay idin siiyo inta cuni ka dhan soo cunteen wixii ilaahay calafkiina idin siiyo baad waxa weeyaan qaadi doontaan mid marka hadday lix jecle kaga jirto Puntland fiire hadday Puntland lix jecle kaga jirto iyo jiritaanka Puntland ee lix jecle uga jiro dadkan suma wallahi ardada wax lagu qorayo oo beenta ah iyo kuwa soo baxay ee beelaha kala Puntland waxa wax u qaban doona kuwa soo baxay ee beelaha kala sawadad wax bartay laakiin nin jaahila haddaad inta ku baasisid wuu baxay oo Turki u dirto uu tahriibo waxaana qabyaalad iyo fadhi ku dir aan bu kugu soo kordhinay suma wallahi ninkaas la riiday ee dib loo dhigay hadii hore loo baasla kaasa Puntland anfacayo haddaad juxow iyo cali xaaji warsamow iyo farolo hadii aad Puntland u naxaysan oo Puntland darnimo idin ka dhabtahay oo masiirka Puntland aad rabtaan kuwaas ayaa Puntland anfacayo oo Puntland darnimo ku anfacayo laakiin wixiina waa ii qor hebel iyo wiilkan adeer ku ahay marka no more dawladda federaalka mid baa leeyahay arrinkan hadday ka noqoto dawladda federaalka oo waxa weeyaan la baqdin galiyo dadka reer Puntland way ka tashan doonaan dawladda federaalka dadka reer Puntland hadda way ka tashteen dawladda Puntland way ka tashan doonaan dawladda federaalka kowde hadda waxa la diray Suldaan Saciid baa waxa la yiri isma kaxay islaan Ciise uu hogaaminayo kaxay waa lagu yiri fiire ma garad xamar bay tageen farmaajo waxa laga waa diiday inta badan waaskii waas xasan ugaas yaasiin waa diiday beldaaji Ismaaciil beldaaji yaasiin waa diiday beldaaji Cali Faarax waa diiday Islaam Bashiir waa diiday waxa igala tagu yirinayo waxaan aad wadaan igala tagu yiri abtiyaalo ma garad Islaam Ciise waxa yiri suldaanka jeebka ku siirido suldaanka warsan gali jeebka ku siirido farmaajo arrinkan waxbarashada kala soo hadal marka dawladda Soomaaliya farmaajo iyo khayre hadii arrinkan ay dib ugu noqdaan dadka reer Puntland way ka tashan doonaan doorashada way soo dhowdaa haddaan u sheegayaa warbixinteedina inay gaartaan jeclaan lahaa qodobka kale oo aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan oo maanta aan meeshan u soo galay waxa weeyaan dadka reer Puntland dawladdu meel bay u asteen doontaa dawladdu meel bay u asteen doontaa ay imtixaan ku galaan habaxaan meesha imtixaanka ku galaan annaga qori doono
dad kalaa qori doono waa la registereynayaa waxa weye ID cards baa loo sameynayaa halkaas ka galayaan minxooyinkoodana waa balan way helayaan dadka aanan gelin marka dadka aanan gelin waxba ay TV-da ka qalqalin puntland jaamacadaha ku yaal ha imaansadaan ha iska dhigtaan awal bada way tahriibi lahaayeen ma wax kale usoo hordaayeen inay tahriibaan mooyaane marka waxaan jeclaan lahaa in barnaamijka la sheergareeyo cid weli sheergareysay male dhowr qof baa sheergareysay dadka waxa weye meeshan ku badan waa dadkii dee adeerow ii qor aheyd marka no more waxaas runtaa laga hadlayaa marka marka laba qodob baa hadda soo socoto in waxa weye britole la dhaho dadka garowe iyo banaanbaxa maamulayaasha iskuullada hadla waxaad sameysaan banaanbax sameeya halkan ka hadla t SBC iyo daljirna loo yaro weliba daljir waa roon tahay oo waxa weeyaan mararka qaarkees inta badan waxa weeyaan waxyaabaha noocaas kamaas laakiin SBC loo yaro la dhaho duub dadkan dadkii markaas waxaa lagu leeyahay fiiriya dadka reer Puntland oo ka banaan baxay baa idaacadda lagu soo qoraya war dadka reer Puntland kama banaan bixinay walaalayaal beenta iska daaya dadka reer Puntland uma xirnaanayaan SBC hal idaacad umana afduunaan karaan dhowr shakhsi على حاجة ورسمة يجوحة وما مشغول وما أفضل من كران يا ديرو يقر ده كان رير بنتنا وحوي امتحان كود مقدشي كجلايان هل كاسي جلايان هل كاسي وحي علف كود كهلان وزارة ده وحبرشة الصومالية كمسؤولة كودي وزارة ده وحبرشة كمسؤولة مركا إذا عدن SBC يو هل وانا سين لها واحد تكتان بوساسة تجا dadka reer boosaaso iskuulada waa la yaqaan boosaaso public secondary school iyo nawaawi kullu waan booqday aniga kowde taga soo duuba haddii dadkaasi ay dhahaan dowladda way qaldan tahay waa qodob kale weliba dad aad xataa soo qasabteen iyo maamulo ula hadlo iyo keena taga waaciye dugsi sare leedahay taga ufeyn dugsi sare leedahay meel walba taga caluula taga dugsi sare ku yaal galdogob taga kasoo duuba laakiin inta meeshan soo fadhiisataan burtilla iyo dad oo hadhowna ciwaan ah uga dhigaysaan dadka reer Puntland oo ka banaan baxay arrinkii goodax bare war goodax bare cadaalad buu ka hadlay ilaahay baa igu ogaa cadaalad buu ka hadlay isagana cadaalad u dhow faroole waa ninkii la ogaa oo u maamulay 700 arday imtixaanka gashay waa ninkii u maamulay inuu 80 arday garow ka qaado 40 ardayna gaalkacay ka qaado dhaw inta kale waa dhicin ilaahay baa ku dhaarshay daraadiis ayay waxay u xirtay dowladda Turkiga ee maxaa minxooyinka ay sii jirtay ardayda Puntland cross la saaray markii la arkay in dadka kale la hadli waayeen oo haddii la iska celin lahaa oo la hadli lahaa oo dadka kale reer Puntland ay arkaan ka banaan bixi lahaayeen oo ay qabsan lahaayeen waxa weeyaan dowladda Turkiga ma xirteen laakiin markay aragtay in dadkan dad dulaysan yihiin oo waxa weeye dadkan xarig ku xirxiran yihiin oo dadkan waxa weeye nin walba kii uu xumaa wasiir looga dhigo la keenay oo waxa uu saxiixay mararka qaarkiis ah kullu la boonaysid baad waxa weeyaan xil waxaan uga qabanay aan u diinay noocaas ay tahay anu ma saxiixi karno nari wax ilaahay ka fog iyo cadaaladiisa oo ay saxiixayaan waa kullu la boonaysaa kaas wax barashada hadda sanad ka soo jeedo wallahi billahi tullahi 3 arday oo adeer u yahay inuu isku dari karin waa dhaartay agaasimaha amro oo wiil reer garowa labada agaasim waxbarashada caafimaadka iyaga iskale dadka kootada ugu xirantaa Puntland baa iskale arag meel aan gaalkacay iyo garow ahayn oo qalin indha la'aanta laga bixinayo iyo arag iyo qalin bilaash laga bixinayo oo taqaatiir Turkiga tagayso waa kaasay bal arag magaalada 2 milyan ku nooshahay oo boosaaso leeyahay oo qalin laga bixinayo iska daa magaalo kale oo reer degan yahay war dadka reer Puntland waxa iskala hadlaan oo xishoodka aan aqoon bal arag ilaah baan kugu dharshay airportkii boosaaso waa xiran yahay maanta waxaan garow oo coronavirus baa dad laga baaraya oo kan boosaaso dadkiisa reer Puntland ma ahmiya markaas ciwaan waxa lagu soo dhigay wasaaradda waxbarashada ee Puntland wasaaradda caafimaadka Puntland oo bilowday barnaamijkii inay dadka airportka ka soo degay coronavirus ka baarto
war airportka boosaaso miyuusan kan puntland ugu weyn ahayn oo populationka ugu badan kasoo degin maal la geeyo war adeeryaal oo naga xishooda dee dadka ka xishooda wasaaradda waxbarasho iyo wasaaradda caafimaad oon garow aan dhaafin ha ku sheegin wasaaradda caafimaad iyo wasaaradda kaleba kulli wasaaraduhuna meeshaas u afduban yihiin wasiiradan beelahan waa lagu qanciyaa hadda fiiri dadkan fiiriya Saciid Cabdullaahi Dan haddu imaana isku shaandheyn buu sameynaya way qoran tahay dadka la bedeli doono iyo dadka lagu bedeli doono dad badan oo hadda mucaarada ayaa taageerayo wax kale ku taageeri mayaan wasiirka beeshana laga bedelo wasiir fiican baan la siiyay baa lagu taageeraya kan kuwa hadda mu'ayidana markii hadda isbuucan markuu wasaaradooda ka qaado bay mucaaradayaan oo waxay leeyihiin wasaaraddeena nagala qaaday war dalku wasaarad maaha dadkan yaa lagu ciyaarin walaalayaalo cayaarta ka daaya dadka oo ilaahay ka baqa kowle juxa hadduu faa'iido leeyahay oo waxa weeyaan reer puntland u naxay wasaaradda arrimaha dibadda uu maamuli waayo oo musuqmaasuq iyo corruption kala dhamaan waayo iyo federalismka waxa weye federalismkan ka shaqeynayn xamar war federalismka afti dadweynu sugayaa ciddiidan male aftida dadweynaha laga qaadi doonaa war cadaaladdu ha shaqeysanayo ardaydan reer puntland waxaa cadaalad ugu dhow inay tagaan xamar oo imtixaan ka galaan wallahi suma wallahi xamar taga imtixaan ka gala halkaa waxaa ka qaadaan ka qaata intaa imtixaan ku dhimatay wiil kale la qori lahaa oo booska la gelin lahaa oo turkiga loo diri lahaa iyo bahalka annagaanu guriga kusoo wada aragnay iyagoo weli kulligood soo wada tahriibay ardaydii lasoo diray reer puntland maxay dadkan usoo tahriibeen baa leeyahay maxaa qaldan baa leeyahay war soo waxbarashanii lama soo dirin shaw waaba dad eberka oo laga keenay baadiye oo la yiri baxa war waxaa iska celiya ma garateen ninkaan farole wax runta u sheegu leeyahay ma garata dadkiisa ma qabto wallahi nin reer puntland ah oo suu goodax barre farole kulli waa ogyihiin kulli siyaasiyiintoo dhan baa og cid walbaa og hal nin oo sidaa ula hadli karo goodax bare ula hadli karo inuusan jirin waxaan uu ka hadlanay kulli weli aaminsan wuu ogyahay farole isagaa dastuurka ku ciyaaray farole isagaa dastuurka qodobo ku darsaday senator wey xamar buu kasoo cararay muxuu uga soo cararay cabdi qaybdid buu xamar uga soo cararay maxaa garowga dhex dhigay dowladdii horena isagay ka shaqeyn weyda cabdiweli cali gaas tanna isagay ka shaqeyn weyda midda kale oo anugu la yaabay oo maskaxdeyda qaadan laaba waxa weye oo qof walba la yaabaya wiil uu dhalaa wuxuu ka soo hadlay wuxuu leeyahay dadka reer hiiraan ayaanu waxaanu mucaawino u geenay sidaa ha noogu fasaxaan waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada ma reer hiiraan baa leh oo wasaaradda waxbarashada soomaaliya ma wuxuu u yaqaanay inuu qabiil leeyahay koox bar wasiir weeye waa laga qaadayaa beri hadda isku shaandheyn buu ku bixi karaa wasaarad nin kalaa la keenaya oo reer baydhaba haddii la rabo nin reer puntland la keenaya laakiin wasaaradda waxbarashadu waxay leedahay dariiq u jeexan dariiqaas ayayna ku soconaysaa reer hiiraan baan maadaha reer hiiraan u geystay macnaha macaawina dadka reer puntland o dhan baa ugeey mise adigu dadka reer puntland baa matashaa matali ka dhaca reer hiiraan sharaf bay leeyihiin waa la isku gurmadaa meel walba wax dhibaato ka dhacdo waa loo gurmadaa laakiin maaha wasaaradda waxbarashada inay reer hiiraan leedahay goodax bare inuu qabiilkiisa u shaqey dee puntland baa qaabkaas loo arkaa waa tabtaas wey dabta puntland ka shaqeyso waa tabta oo uu ina farole ku hadlay wasaaradda reerkaa haysta markaas reerka markaa haysta ayaa wasaaradda see rabaan ka yeesho wasaarad walba beel baa la siiyey wasaarad walba beel baa la siiyey beeshaasaa reerkay rabaan waxay kaa rabaan ka hadlaan ka samaysto cidday rabaan qoraan marka tiiba way haystaa wasaaraddan waxbarashada lahaa cid walbaa qabanayso soomaaliya qabiil walbaa kasoo jeedo goodax bare shaluu yimid maantana wuu tegayaa berina waa tegayaa oo nin kalaa la keenayaa wasaaradduna waxay ku soconaysaa dariiq ay hadda ku socoto walaalayaalow marka waxa weeyaan wax loo adkeysan karaa ma aha waxaan wax qof bini aadana uu ku hadla ma aha waxaan ee dadkan meesha lasoo fadhiisanayaan waa la xishoodaa marka naga xishooda billah caleyk kowr waxaan hadda anigu maalidood baan ka imid deegaankii waa soo arkay
abtiyaalo xishoodan ku ir waxaan dii meeshan dowlad kama jirtay systemkan qurxiya wasaaradahan aad lidin aan garowa dhaafsaneen qurxiya walaalayaalo ma fahamti tirakoob ciidan baa la sameynaya baa layiri wasiirka maaliyadda maamulaya joogo wasiirka amnigaa joogo mee dadka shaqada waxaan ku lahaa mee xataa waxaa laga xishoon waa fiiriya wasiirka amniga xataa haddii waxa weeyaan booska laga eriyey wasiirka arrimaha gudaha xaq u lahaa wasiir maaliyadeed la wareegaya bug iyo qalin ciidan baan bahal keenaya waa intaas tviyada laga arko waa suuqgeyn 2024 ninka madaxweynaha noqon lahaa wey dadka reer puntland baa laga iibinayaa waa la suuq geenaya marka abtiyaalo meeshan waa la wada leeyahay dadka reer puntland waa dad ehela waa dad walaala waa la wada leeyahay meeshan kowde dulmigana wallaahi bilaahi tullah xataa dadkan la leeyahay dulmiga iyagaa meesha iska cuno ayagaa dulman markaad eegtid ayaga qudhooda ma fahanteen ayaga qudhooda dadkan dulman oo aad leedihiin macnaha nimanka rag ahaa waca la leeyahay waco life ka jira leeyahay ma garateen marka ilma adeer reer puntland ninkan goodax bare xaq buu ka hadlay cadaaladna isagaa u dhow meeshana waa koota u xiran faroole iyo juxa iyo ninkan cali xaaji warsama ah wasaaraddan waxbarashada wasiir bay leedahay wasiir ku-xigeen bay leedahay agaasime leedahay wasiiru dowla leedahay ha ka hadlaan ardada reer puntland ha ka hadlaan maamulayaasha ka hadlaan nin aan xidhayn oo kawan wasaaradda waxbarashada difaacaya imise siyaasiyo reer puntland aa jiro dadkao dhan waa siyaasiyiin reer puntland may ka hadlaan dhahaan wasaaradda qaldan haddaysan ahayn kooto iyaga u xiran waa arrintiis wasiirkan waa maqaar saar galaas biyaha ma soo kordhin karo 3 wiil adeeradiis uu adeer u yahay wallahi ma qori karo wiilka agaasimaha iska haysto wasaaradda anigu waa tagay meelahan soo indheeyay bay kamid tahay wax ka jiro male dugsi sare inaan dhameen baa feel wato dhaxda u xiran tahay oo gaari loo iibiyo meeshaas qaad ku sugaa duurkii buuqaad ku sugaa marka reer puntland inta taageeraysana waxay u taageeraysaa waxa weeye dhowr wiil oo ka shaqeeya madaxtooyada iyo dhowr wiil oo Saciid Cabdullaahi Dani uu yiri facebookyada iiga bahalkeeya oo uu waxa weeyaan shaqo galiyo mushahar ka qaato mushaharkoodii ayay waxay siisanayaan inay dulmiyaan dadka reer puntland marka xalku waa sidee waa ka baxaya leefka waa soo geli doonaa barnaamijkan waan wadi doonaa insha Allah biidhnillah bikrim wixii puntland ka socdana waa ka hadli doonaa xalku waa sidee marka xalkan ka hadlinaa oo waxaas dhan isku soo dudub mawduuc ka baxsan mawduucyadu waa badan yihiin ma raba inaan mawduuc ka baxsan wasaaradda waxbarashada maanta ka hadlo mawduucyada badan way dambeyn doonaan arrinkan marka waa arrin masiiriya waa arrin way jiraan dad kale oo waxa weeyaan dadku iskuma jiraan dad imtixaankooda u diyaaraa jiro marka arrinkan waa arrin masiiriya ايش الحل حلك aan raadina marka federaalka waanu aragnay puntland waanu aragnay puntland 3 nin baa u hadlay oo aan wasaaradana ka tirsaneen oo reer ahaan uga hadlay ma fahanti ma garatay marka xalku waxa weeyaan in wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ay ardada reer puntland meel u asteyso ay tiraada kaalay halka imtixaan ku gala imtixaanka halkaa lagu galo wixii imtixaanka galana ay xalka gaadho wixii geli waayo Soomaaliya dee haw doonta Saciid Cabdullaahi Dani shahaado ma fahanti isku jaamacadaha uu ku yaala wadanka jaamacadahana ayaga ha looga dareero ayaga una ha dhigtaan iyo dugsiyada saraba ma fahanti xalku waa intaas baan u arkaa walaalahay reer puntland cadaaladda ka hadla oo waxa weeye runta ka hadla oo waxaana macnaha hadii aad leedihiin qabyaaladda ku taageeraysan joojiya waxaan waa qabyaalad qayaxan waxa lagu taageer garay 2 nin kama wado qos waxaan iska 4 sano loo dul qaadanay 4 years bay u ilaahay sanadka dambe sanad sheekadii 30 sano Soomaaliya burburkeed bay ku sii wadaan waa islaamaya dhamaan dadku waa salaamaya barnaamijkan hala share gareeyo hala gaarsiiyo waxa weeye beejka ha lagu goro inta haliga gaarsiiyo wasaaradda waxbarashada annaga mas'uul uga noqonayno xiriirna hadda waa noo socdaa ardada imtixaanka gali doonto iyo waxaas oo dhan
waxa weye waa la xiriiri doonaa maamulayaasha dugsiyada waa la xiriiri doonaa wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo waxa weeye maamulayaasha annagaa u dhexeyn doono barnaamij agreementii bay kala geli doonaan xamar baana layskugu geen doonaa halkaas ayayna waxa weye imtixaan ku geli doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu